tahliil faarax dhanka kale waxaan khadka taleefonkiisna kula xiriiray cabdulaahi maxamed cali sambalolshe agaasimihii hore ee hayadda sirdoonka ee soomaaliya oo lafahantiisa aqoon u lahaa shaqada sirdoonkana siiye gabadha la shaaciyey in shabaab ay dileen haddaba qof caynkee ayay ahayd su-aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa ka jawaabaya sambalolshe. ina ilaahi waa inaa rajicuun. horta waxaan ka tacsiyeynaa geerida gabadhan ikraan tahliil faarax. runtiina in muddo ahba waa la hadalhayay geerideeda. tuhun weyn ayaana ka jiray. rajo badanna lagama qabin, shakhsiyan anugu kama qabin in ayada nool la arkaayo. laakiin arrinkan waa arrin ugub ah, sida soomaalidu inta badan ula yaabantahay ayaan ula yaabanahay. arrin la fasiri kara ma ahan. dabcan faahfaahino dheeraada iyo jawaabo dheeraada ayaana laga rabaa hay-adda nabad sugidda qaranka, not hay-adda bad guud ahaan dowladda iyo hay-adaha ammaanka qaranka. xaggee marka al-shabaab gabadha ka heleen, xaggeyse ku dileen, goormayse dileen, ma loo gee midaas? haddii waxaa la rabay in oo faahfaahinta waxaa laga sugaya cidda messagekan ama statementkan soo saartay. gabadhu xayndaabka hayadday ku jirtay, gaari la yaqaana ayaa qaaday. sida hooyada sheegtana qof taliya ah, taliyaha guud ee hayadda mase taliyaasha kale, taliyaasha hayadda waa badan yihiin, ayaa soo wacay. qofkii ku kalsoontay aaminsan tahay oo isku hadlayn karto nambarkiisa taqaano, codkiisa taqaana ayay u baxday. marka haddii hayaddu ay shabaab tahay ma ogi, laakiin weligeedna ma dhicin, haddana ma dhici doonto qof xayndaabkaas ku jira in shabaab u afduub. al-shabaab haddii ay qabtaan qof ka tirsan sirdoonka, weliba sarkaal sare ah oo gacantooda ay ku dhigaan, ma kula tahay inay muddada intaa leeg qarin lahaayeen? sida lagu yaqaanay shabaab way ugaarsan jireen dhammaan shaqaalaha dowladda iyo dadka dowladda u shaqeeya, ama saraakiil ha noqdaan ama madax sare ha noqdaan ama xildhibaan ha noqdaan, iyo khaasatan hay-adda nabad sugidda howlwadeenadeeda. webedkeedna ma dhicin qof nabad sugidda oo ay shabaab afduubeen, laakiin boqolaal ay dileen waa jiraan, boqolaal ay toogasho ku xukumeen ama gawaaridooda ay qaraxi ku xireen waa jira. arrinkan arrin ugub hawaaye. sida muuqatana hay-adda nafteeda fulisay ama collaboration hay-adda iyo shabaabka aha jira. marka adigu waxaad ku doodaysaa haatan in shabaab aysan arrintan ku lug lahayn? laakiin bruufaa la rabaa. adiga sideedaba qofka sheegay inuu shabaab ku lug leeyahay, shabaab xagguu ku dilay, goormuu dilay, shabaab wax ma qarsadaan, annaga ma shabaab afhayeen u ah, ayaga ma sheegan, meelay soo dhigeen lama arko. arrinkaanu dee mugdi fara badana aa ku haraysan, mana looga qanci kara intaan. maxaa ka naqan gabadhan ikraana? dabcan gabadha anigaa shaqada qoray. gabar dhalinyaro ah oo wax soo baratay ayay aheeday. kenya ayay kusoo barbaartay, jaamacad uga soo baxday. dhalinyaradii waddankas kusoo noqotay in waddanku adeegaan qorshaystay ayay qayb ka aheeday. aniga waa layga rukumadaareeyey. anaa hayadda keenay gabar qunyar socod ah oo afgaaban oo aqoon leh oo akhlaaq leh eeday, karti badan, qof caqli badan oo dhowrsan oo howlihii loo dirana si taxadar leh oo successful oo dhammaystiran oo fiican ku fulisay. maxaad waagaas ku xulatay marka adiga? gabadha marka wax la xulanaayo baahiyay ku xiran tahay saacaddaas, laakiin qof wax taqaana, dhowrsan, la aamini karo, calaamadihii ama skillskii potentialitigii intelligencega in loo tababaro, ama xafiis sirdoon inay joogtay ka shaqayso, qualitiskiis ama tayooyinkiis ayay ila lahayd. marka ayadaa sirdoonka soo doonatay miya mise shaqaraadis ba iska ahayd? wala aniga true recommendation qof baa iga rukumadaareeyey. dabcan dhalinyarada dibadda ka imaanaysa oo waddanka shaqa doon ay u tahay in la empower garay oo la shaqo geliyo, la howlgelin waa waajib qaran oo jira sooma. waata markaa shaqaalisiisa kadib maxay qabatay? xafiiskayga muddo joogtay, kadibna xafiis kaleeto human rightska iyo genderka ah u wareejiyey. meeshaasayna markii aniga aan joogay ka shaqayn jirtay iyo kadibna sidaan sheegay dee hay-addii xoog u dhex gashay, waa tababaratay, dadkii baratay, waa la aaminay, qof muuqata ayay noqotay. qaabkay ahayd marka in arrinta gabadhan loo wajaho? wallahi horta sidaan ka warqabno xeer ilaalinta ciidamada qalabkiisa ayaa tiim baariyaal sameeyey. ayadii waay looga hordhacay, ayadii statement lagama soo saarin, ayagoo maxkamad dad saaray lama arkin, ayagoo baaritaan soo saaray lama arkin, report sooma saarin. waay ayadii looga hordhacay. teeda kale ciddii la baari lahay inay wax baartana sax maahanba. hay-adda qofka ama institutionka ugu horeeya oo laga shaki kara waa hay-adda nabad sugidda, bikoos gabadhu hay-adda u shaqaynaysay. laakiin inay hay-adda u shaqaynaysay taa kama dhigaysa in hay-adda laftigeeda ay daba socoto bartilmaameedsanaysa soo maaha? haddi qof qiran ama lagu qiraayo haddaysan jirin meeshii gabadha raadkeeda ugu dambeeyey iyo cidda ugu dambeysay iyo cidday la shaqayn jirtay iyo meeshii deganeeda laga raad raaca sooma. adiga haddaba haddii uu neef xoolaa kaa dhumo meeshii kugu dambeysaa ka raad raacay sooma. hadda marka maxaa la gudboon hay-adda sirdoonka inay samayso? wallaahi hay-adda sirdoonka waxay samaynayso annagaan ka sugayna lama arko. leadershipka prime minister ugu horeeya, golaha wasiirada ugu horeeyaan, madaxweynuhu ugu horeeyaan, waa action laga qaado. guddi madax bannaan oo professionala oo khubaro ahna la sameeyo oo arrinkan ay baaraan. hay-addaana la baaraa specifically, gabadhaanaan la baaraa meeshii ku dambeysay iyo waxaasoo waana la heli karaa. adduunka technolojiyada jirta, adduunka dad wax la yidhaahdo reconstruction of evidence sameeya ama dib u dhisi kara caddeymihii ayaa la heli karaa. arrinkan wuxuu u baahan yahay si dhaba in loo eego, na aanan la ysaga harin. haddii kale hay-adaha dowladda oo dhan ayaa waxa noqonaya lama canaantaan iyo caanihii daasho. kaas waxau ahaa cabdulaahi maxamed cali sambalolshe agaasimihii hore hayadda sirdoonka soomaaliya.